Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sheegtay inay dhawaan soo gaari doonaan tallaalka caabuqa coronavirus lagaga hortago, iyadoo sheegtay in DP World iyo UNICEF ka heshiiyeen in tallaalkaasi la soo mariyo madaarka caalamiga Berbera iyo dekedda Berbera. Sidaas ayaa sheegay wasiirka arrimaha caafimaadka Somaliland Cumar Cabdilaahi Bede oo wareysi siinayay warbaahinta. Tallaalkan ayaa loogu talagalay bartamaha iyo bariga Afrika in la gaarsiiyo iyo dalalka aan bedel lahayn. Waa guul soo hoyatay Somaliland, waana guul fiican in macaamilooyinka la soo gaarsiiyo bariga Afrika la soo mariyo dekedda, waxaa sidaa yidhi wasiirka caafimaadka Cumar Bede. Waxaa kaloo ay Somaliland sheegtay in tallaalkaasi iyada qaasatay soo gaari doonaan 2 bilyan oo kuwa tallaalka ah. Sidoo kale waxa ay sheegtay in tallaalkaasi ku deeqeen dalalka G20 ee warshadaha leh ee horumaray.